jaajuuskan aad u jeedaan gacanta ayaa lagu dhigay waxa uuna kamid ahaa kuwii ka dambeeyay xalay in la qarxiyo xarunta nuclearka ee Fordow taas oo ay duqeeyeen ciidamada Mareykanka sida loo soo qabtay waxa uu ahaa shaqadiisa sheekadaas oo dhan ayaan kula wadaagayaa sidoo kale baarlamaanka Iran ayaa saacadahan ama daqiiqadahan ku dhawaaqi doona go'aanka ah in la xiray Hormuz marinka Hormuz waa kanaal aad muhiim u ah waxaan rabaa isna kanaalkaas waxa uu yahay waxa uu qabto shaqadiisa inaan kula wadaago laakiin kanaalka arkiisa halka naga dhig xaaladda Israa'iil oo meesha ugu xumeed maraysa dib aan u dhiganaynaa doorta ninka la qabtay muxuu yahay ninka la qabtay waxa la sheegay in maanta duuradii ay qabteen ciidamada Sadoonku waxa la daba socday muddo 2 maalmood ilaa 3 maalin ah waxa uu tagay magaalooyin badan oo ka tirsan Iran waxa la sheegay goobta xalay ay duqeeyeen ciidamada Mareykanka ee lagu bacrimiyo hubka nuclearka Iran in area u dhow ninkan uu tagay qalab yar oo sirdoon oo dowladda Mareykanku leedahay oo halkaas ku dhigay kadibna iyadoo aan bal filanayninba in xalay duqeymaha kaas ay ka dhaceen 3 xarun oo lagu bacriminayay hubka nuclearka Iran ay xalay duqeysay dowladda Mareykanka duqeyn xooggan ayaa ka dhacday duqeyntaasi ilaa 30 meel ah 12 meel ah 42 gantaal ama bam ayaa lagu dhuftay ninkii waxaas oo dhan sababtu ah marka gacanta ayaa lagu dhigay su'aalo ayaa la weydiinayaa saacadaha soo aadana xogihii ugu dambeeyay ayay ballan qaadeen in ciidamada nabad sugidda ama ciidamada sirdoonka Iran ay xogta ninkan ka baahi doonaan waxaa kaloo lagu daba socdaa labada magaalo ee kale ee la weeraray ee Nuntas iyo magaalada kale ama goobaha kale ee la weeraray ee nuclearka lagu bacriminayay ragii ka dambeeyay oo u fududeeyay dowladda Mareykanka yani meesha marka oo drones ay soo weerarayaan waxaa qasab ah GPS ku hagay inay jiraan dadka halkaas dhiga marka GPS sida ama qalabka sirdoon ay fududeeyay in la weeraro xarumahaasi waxaa qasab ah saacadahan soo aadan inaan gacanta ku dhigno ninkan la soo qabtay waxaa la sheegay in shalay uu qalab meesha dhigay ilaa shalay ilaa ay maantana uu isu maray yani magaalooyin aad u fara badan yani boqolaal ama kumanaan kiiloomitir inuu jaray asoo marba magaalo tagay si aan loo fahmin macnaha sirdoonku inuu raadsanayo ayuu aad u dareemay falilah alxamdu ciidamada sirdoonka ayaa gacanta kusoo dhigay haatan gacanta ayaa lagu hayaa ninkan kale aad u jeedin sawirkiisu dabcan shalan baahinay xogtiisa waxa warar kale oo halis ah ayaa ka soo baxay ninkan shalay waxa uu sheegay in uu ahaa kaliya sawir qaade oo goobaha nuclearka xarumada ciidamada oo kaliya uu sawir ka qaadi jiray laakiin waxa la ogaaday inuu ahaa horjooge shabakad aad u fara badan oo yacni magaalooyin fara badan ka shaqeyn jirtay gudbin jirtay xogaha sirdoonka sidoo kalena dowladda ka dacaayay jirtay baraha bulshada muuqaalada hore waxaan ku sheegnay dagaalkan markuu dhacayay in Israa'iil ujeedkeedu uu ahaa in la burburiyo hubka nuclearka ee Iran kadibna shacabku ay kacaan ee dowladda la rido kadibna shakhsiyaad boqortooyada Iran ka tirsan xiriir dhowna la leh sirdoonka Mossad iyo sidoo kale dowladda Mareykanka ay rabeen inay kursiga keensadaan arrinkii ma dhicin marka dadkii baraha bulshada ka buunbuuninayay yahuudda gacanta ayaa lagu hayaa marka waxaad la daawataa marinka Hormuz oo dhawaan ugu dhawaaqayo in la xiray muhiimadda uu leeyahay waxa uu yahay halka uu ka yaalo iyo sidoo kale burburka gaari doono dowladda Iran haddii ay xirto marinka Hormuz wala daawo marin biyoodka Hormuz waa biyo mareen aad u yar oo dad badani aysan ogeyn muhiimadda uu leeyahay laakiin leh awood weyn oo saameyn ku leh dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka marinka Hormuz dhererkiisa waxaa lagu sheegaa inuu ka yar yahay 55 mayl inkastoo uu u muuqdo meel yar haddana waxa uu noqday halbowlaha dhaqaalaha dunida gaar ahaan shidaalka waxaa lagu gudbiyaa wax ka badan 20 milyan oo fuusto oo batrool ah maalin kaste taasoo u dhiganta ku dhawaad kala bar shidaalka dunida Iran oo ah dal ku yaala dhinaca bari ee marinka mar walba waxa uu ku hanjabaa inuu xirayo marinka haddii cadaadis la saaro hanjabaadan waxa ay noqotay warqad culus oo u adeegsato markii cadaadis siyaasadeed ay kala kulanto gaar ahaan Mareykanka ama reer galbeedka oo ay saaraan cunaqabatayn xagga batroolka ah
Iran waxa ay isticmaashaa marinka sidii warqad lagu cabsi geliyo dunida si ay u dardargeliso danaheeda siyaasadeed ama military, sida markii la damco in laga farageliyo arrimaha bacriminta nukliyeerka oo haatan ku howl jirto. Haddii Iran si dhab ah u xirto marinka, waxaa dhici karta in qiimaha batroolka dunida cirka isku shareero, maraakiibtuna ay istaagto, shidaalkuna yaraado. Meelo badan oo dunida ka mid ah, gaar ahaan kuwa ku xiran ama ku tiirsan shidaalka khaliijka, waxay geli doonaan xaalad degdeg ah oo weliba adag. Waxaa jirta dhibaato kale. Shiinuhu waa iibsadaha ugu weyn ee batroolka Iran. Haddii marinka la xiro, Shiinaha oo xiriir dhaqaale oo xooggan la leh Iran waxay u arki kartaa falkaasi mid dhaawacaya danteeda, taas oo laga yaabo inay cadaadis ku saarto Iran. Inkasta oo Iran leedahay qayb ka mid ah marinka, haddana inta badan biyaha marinka waxay hoos yimaadaan dalka Cumaan, taas oo macnaheedu tahay Iran inaysan si buuxda u xiri karin marinka xitaa haddii ay rabto. Khubaro badan oo qaba in Iran aysan si dhab ah u heli karin xiritaanka marinka, balse ay uga faa'iideysato hanjabaadda si ay uga dhigto meel ay ku cabsiin karto reer galbeedka iyo dowladda Mareykanka. Marar badan oo hore, Iran waxa ay sameysay hanjabaadan oo kale, tusaale ahaan sanadihii 2011, 2012 iyo mar kale oo ahaa 2018 markii Mareykanku uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka. Iran waxa ay marar badan sheegtay inay xirayso marinka, si kastaba ficilkaasi weligii ma dhicin. Sacuudiga iyo Imaaraadka waxayba durba bilaabeen inay dhoofiyaan qayb ka mid ah batroolkooda iyagoo aan marin Hormuz oo adeegsan, laakiin dalalka sida Qatar, Kuwait iyo Bahrain ayaan haysan beddel kale iyo meel kale oo ay shidaalka marsiiyaan, taasoo ka dhigaysa kuwo u nugul haddii marinka la xiro. Marinka Hormuz si adag ayaa loo ilaaliyaa, waxaana halkaasi jooga maraakiib dagaal oo ka kala socda Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Indiya iyo isbahaysi caalami ah oo ka kooban 34 dal oo xaruntoodu ay tahay Bahrain. Khubarada militariga ayaa sheegay in Iran ay marinka xiri karto muddo saacado ah oo kaliya ah, kadibna ay ku qasban tahay inay ka laabato. Haddii kale, waxaa dhici karta in ciidanka badda gebi ahaanba la burburiyo oo ciidanka Iran ee badda dhulka lagu daro. Ugu dambeyn, marinka Hormuz waa mid ka go'aamiya xasilloonida ama colaadda gobolka khaliijka, waana mid aad u yar laakiin leh awood weyn. Mar walba marka xaaladda gobolka qalafsan tahay, marinka waxa uu noqdaa qalab siyaasadeed oo la isku cabsi geliyo. Iran mar walba waxay isticmaashaa hanjabaadda xiritaanka marinka si ay u muujiso xooggeeda, laakiin khatarta ay qaadi karto haddii ay ficil sameyso waa mid aan la maleysan karin. Tani waa sababta ay dunida inteeda kale ay si taxaddar leh uga eegto marinka, iyadoo la ogyahay in ficil kaliya oo ka yimaada Iran uu isbeddel weyn ku keeni karo qiimaha shidaalka, dhaqaalaha caalamiga ah iyo sidoo kale amniga gobolka. Haddaba waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga bogatay arrinka marinka Hormuz. Haddii aad meeshan ila soo gaartay, sheer garee saaxiibada la wadaag. Haddii aad nagu cusubtaan ugu soo bir, waa mahadsantahay.